لكن قدال فيريا معناها تماها قيبت كورنا فيريا نين intaan geeskan way caddahay kala duwan yahay waan la kala dadaal fiican yahay qof iska fadhiyo qof dadaalay lama tartami karo runta idin sheegay qof fadhiyo qof dadaalay lama tartami karo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa salaamu aniga Muuse meeshaan nagala socotaana waa kulan la bidaar caawiya dhammaan gaashaan buurta rag iyo dumar waa mahadsantiin si sharafta la isku caawisan anigana adii caawisan insha Allah kulay maanta waxaan noo wadaa natiijo qurux badan ayaa noo wadaa waa natiijo aad u qurux badan oo dhiirigelinteeda maxaa waaye waa bilow natiijo ma dhameystiran ma aha natiijadu laakiin waa bilow qofka macna toban beri bilow isku day fiican ayuu subi macna oo ah dhiirigelin hore u sii wadeysay alxamdulillah isbedel weyn ayuu wadaa marka laakiin tobanka beri oo ugu horeysay isbedelka uu noo keenay ama uu keenay walaalkeen ayaa ah wax fiican oo dhiirigelin aad fiican insha Allah beritan waxaan noo wadaa natiijo kale aad u qurux badan oo ah mid aydan muran badan idinku dhalin doonto kolay laakiin waxa loo baahan yahay muranka tii hore ayay qancinaysaa mid hadda maalintii hore adiga laba maalin ka hor meed ma xasuustaaba ku yaraato wallahi laba maalin ka hor aan jeclaa sax yes laba maalin ka hor waaye mid noo ahayd aad tiraadeen qofkan timuu iska soo xiiraysaan buu yeelay kanuu yeelay tii ayay qancinaysaa in macnaha meeshaas waa diideen laakiin muu baana in waxaasay tahay waxa la isku qanciyo barnaamijyo la isku qanciyo maaha meeshan waa dhiirigelin waa ficil waa hool insha Allah waana ku maasantiin qof walba ra'yigiisa ku soo dhiiban kara laakiin mid bari insha Allah waxa dhii doontaan ninkan maxaa dhii doontaan isaga maaha ma dhii doontaan wax kale maaha ma dhii doontaan idinka sugi doontaan taas waa biriti insha Allah kama hor dhacay insha Allah laakiin waxaan ogaan doonaa isbedelkaas intuu leeyahay iyo intuu noqon doono laga yaabay birito inaad muran badan ku dhalisaan waayahay marka gaashaan buurta fadlan hadaa dhalinyaro tahay 17 ilaa 25 rag iyo dumar ba isugu jir fadlan iska dhaaf kalarka madaxaaga marinaysid madoobeysada ha noqoto kalarka casaanka ama kalarada jaalla waxay rabtaa noqoto aad marinaysid iyo waxyaabahan kale oo ah sida jilcisada waxyaabaha jeelka fadlan la soco inay dhibaato kugu soo dadajinayso timaha ka daadinayso maxaa is leedahay oo sababay dhalinyarta yaryar 17 jir ilaa 25 bidaarta maxaa ku badiyay ma fakarto waliga waxa ku badiyay waxa keenay idin sheega sababta waxyaaba aad madaxaaga u qooraysid dadka qaybtood kuwan u qoorin dhalinyarta aan marin waxyaabaas madaxa ogow timahooda alxamdulillah way raagaan waqti ayay qaataan laakiin dadkan timahooda waxyaabo badan iska mariyo oo wuxuu marinayo si garanaynin waxa keenaysa inay bidaar ku soo degdegto ay bidaar wehel kula noqoto bidaar ay saaxiib kula noqoto bidaarta haday saaxiib kula noqotana waa wareer marka fadlan waa idin bariya dhalinyarta yar ha laga dhiirigeliyo ha laga wacyigeliyo darmarolka dhalinyarta qaybtood madaxa wuxuu dhibaa Soomaa uu dhibaa madaxa dad buu xanuujiyaa dhalinyaro cusub neerf xanuun ayuu ku kiciyaa maxaa keenay waa ku cusubtaa marka ku cusubtaa dabeecadaas uu leeyahay darmarolka inuu madaxa ka xanuujiyo neerf xanuun ku kiciyo intaas oo dhan uu leeyahay fadlan marka muhiimadu waxay tahay haduu aad ku xanuujiyo neerfax badan ku kiciyo meesha aad joogtid ay tahay meel qorraxda kulushahay isticmaal habeenkii si fiican u isticmaal si aad maalintii madax xanuunkii badna neerfi uga nasid marka saacadid uga nasid oo kale waa haday darmarolka ay ku dhibayso aad ku dhibayso u bedel habeenkii isticmaal habeenkii macnaa marka la qabsatid إن شاء الله كل واحد مرسن كرتا مركز مالنتي إلى مركز نرفع على قبصدان ومضح على قبصدان مركز نمبر كانوا أيدي شيء ونمبر عدد في 0.5 هداد ويدو 0.3 0.25 هذا قواس هرس استعمال أي نفط الكود استعمال وواحد أبا أنت المهم دو حتى ورك أشخاص كوكاوا دار مرولكا إنها سن نظيفة واستعماشت سن نظيفة أو استعماشت وقت أتسيست صبح دي يهبينكي والله وضع وقتي أيها كابدن متى استعماشد اسبدل كانوا واتكين كرتان ضد بدن أو دلنجرا أو حجرو اسبدل في عن كان مركا أوجد إنه مركا صور كان هذا انتصاي أوكي ما أنت كواد صور كان ويلك ولكن قدال فيريا معناها تماها قيبت كورنا فيريا نين كان أنت انجيز كان وعدها هاي معنا وما أنت وجورس فيرست داي وبلا باي درمرول يسريد مركوسكو بلا باي أنت أصوي وجدان قيبتان وهذا أوجدان maxaa sababay maxaa keenay waa marka timaha ka kacayeen qofka fiiri walaalkeen hadda wiilkan oo kale runta hadan ka hadlaadii uu isbedel si wado
timihiisu buuxsamay hadhow dad kala dhahayo waaye weligaa bidaar kuma galin dad kala dhahayo waaye waa dad kala dhahayo weligaa bidaar kuma galin laakiinse muhiimaddu waxay tahay hadda qaybta gadaal dhakada dambe way asaga meesha ka haysta inta ugu badan intaan way jirtaa laakiinse waxaa ka badan markii la xisaabo qaybta gadaal ilaa intaa ka badan intaas hadda fiiri la soco oo ah si v camal waaye oo v camal ah laakiin midna ogaada wiilkan madaxuu leeyahay maasha allah iyo wiilkii maalin dhowta aad ku murmayseen waa isku timo waa dadka isku timaa dadkan marka dhalinyarta noocaan oo madaxyadooda saan yahay waa madaxooda timooda way fiican yihiin timo adagna way leeyihiin timo jilicsan oo adeega waaye okay marka qofkan oo kale markuu dadaal isla markii timo fiican usoo baxay timo qurux badan usoo baxay meel walba buuxsamaysa waa dadka aad ku murmaysaan dhaysaan maya ma dhicin waxaan wax ma suubiye ma jirto dadka dhahaysaan waay dadkan maxaa sababay isbedelka bini aadanka wuu kala duwan yahay waa la kala dadaal fiican yahay qof iska fadhiyo qof dadaalaya lama tartami karo runta idin sheegay qof fadhiyo qof dadaalaya lama tartami karo mana aha in loo tirsado dadaal suubi ficil la imow waad la tartami kartaa waadna dhaafaysaa taas waa hubaal shaki kuma jiro wax shakiya kuma jiro okay ingelinay arag 10 maalin kadib muxuu suubi isbedelka uu keenay 10 maalin bal kadib feeri alxamdulillah macnaha hadduu sii wado weligaa bidaara kugu jirta lama dhaha haddaad sawirka si fiican usoo dhaweystid xataa wiilka salxayaa meeshu xooqayo darmarolka sida uu la dhacay calaamadihii weli way leedahay wuu cusub yahay waa 10 beri calaamadihii weli way ka muuqataa si fiican taa u fiirisid oo geeska fiiris meeshaan salxayaa calaamadii weli way ka muuqataa waaya maasha allah macnaha madaxiisa wuu isqariyay waa 10 days waa 10 days madaxiisa wuu isqariyay madaxiisa alxamdulillah wuu isqariyay geeskan oo aadka u banaanaa marka hore wuu daboolmay wuu xirmay hadduu hadda ka waran tusaale ahaan hadduu sii wado muddo 2 bil oo kale haddii ahaan lahayd maxaad filan lahayd waxaad dhihi lahayd waa uu soo xiiray ayaa dhihi lahayd taas horta waa hubaal shaka kuma jiro laakiinse wuu dadaalay alxamdulillah waxaan leeyahay dhiirigelin fiican ayay noo tahay dadka gadaasha ka cabanayo dadka geesaan inta ka cabanayo ayay waxay u tahay dhiirigelin aad u fiican weli waa bilow waa asaga waxa waaye arrin bilow uguba waaye waa natiijo 10 maalin ah marka natiijo 10 maalin ah hadduu intaas ku keenay alxamdulillah ayaa leenahay maasha allah walaalkeen si fiican ayuu mataqaanaa noogu dadaalay wiilkan tusaale fiican u yahay wallahi tusaale aad u fiican dadka geesahan ilaa dhakada ka cabanayo meeshan qaybtan gadaal kugta gadaal ayuu wuxuu u yahay tusaale aad u fiican oo mataqaanaa in ay awoori karaan wixii dadaali karaan ficil ay suubin karaan looma baahna sheeko waxaa loo baahan yahay ficil 10 beri hadda fiiri marka waa in tusaaya maalintii koowaad sidoo ahaa oo jeeda maxaa ka dareemi kartaa qaybtaas gadaal maxaad ka dareemi kartaa adiga adan ku su'aale qaybtaas gadaal oo inta maxaad ka dareemaysaa ilaa intaan waa ugu jeedaa muxuu ka suubiyay qaybtan kale xataa way banaaneed isbedelku ka suubiyay maxay tahay wuu qariyay qaybtan midigta wuu qariyay qaybtan wuu qariyay oo macnaha bidixda ah wuu qariyay bidixdiisa wuu qariyay oo mataqaana wuxuu ku suubiyay xooqitaan darmarol badan ayuu isticmaalay ilaa dhakada ilaa afka hore marka muxuu ku wadaa salxayaa hadda weyn u jeedaan fiiri si fiican fiiri salxayahaas ayuu soo buuxinayaa calaamadana waa idin tusayaa sawirka qaybta 10aad ayaad si fiican uga arkaysaa maalinta 10aad ayaad si fiican uga arkaysaa markan waa bilow okay waaya fiiri marka hadda sawirka maalinta 10aad si fiican fiiri maan 10 beri kadib muxuu suubiyay arag tintimis soo dabooshay meeshii banaaneed ma soo dabool aad muu soo buuxiyay wax fiican oo ka qabtay okay salxayaa marka hadda si fiican u fiiri inuu mataqaana shaqo ka qabanayo waad u jeedaa salxayaa qaybtan inuu shaqo ka qabanayo waa u jeedaa oo mataqaana aad u xoqanta weli caadi maysan noqon maxaa keenay wuu cusub yahay 10 maalin waay marka waxay u tahay dhiirigelin dadka 10ka maalin isbedelka kuma xirna marka maalmo kuma xirna waqti kuma xirna isbedelku wuxuu ku xiran yahay runta hadii laga hadlo dadaal ayuu ku xiran yahay saa u dadaashid aad wax u qabatid ayuu walaalayaal ku xiran yahay anoo runtii sheeg waxaa la kulmaysaa madaxaaga inuu madow noqdo waxaad la kulmaysaa macnaha inuu qolofka kacay wiilkan wadid geeskan dhan maxaa kacay maqaarka markuu kacay looma joojiyo dhib ma leh dhibaato ma leh waxay ka turjumaysaa wixii waa bilow ficilkaas suubinaysa marka dambe caadi noqonaya way isqabsanaya wuu isku mid buu noqonaya madow waa imaanaya qoloftiyaa soo daadanaysa madoobeed qaanjeeraa bilaabanayso cadcadaan
waxaas oo dhan oo wada ah ayaa imaanayso marka intaas oo wada waxaa laga rabaa fadlan inaadan ka baqin in aadan ka baqin ayaa laga rabaa haddaa ka baqdid isbedel ma suubin karto laakiin se kartidana kuma xirna macnaha inaad xoog madaxaaga dhiigisa ee keentay dhibaato no way tartiib ficil fiican suubi oo nadiif ah ha isku dhaawicin dhibaatana ha isku geysan darmaroolka haddaad awoodid waaba haysataa haddaad awoodin meest soma dhibaato ma jirto talada kale ay siinay waxay tahay hadduu madaxaaga cadcadaad ka kubato fadlan saliidaha adag ha isticmaalinba waxaad isticmaashaa baby oil oo kala soo qaado baby oil oo kala haddaad saliid ka maarmayn baby oil soo qaado macnaha dad waxaa jira shaqooyinka u dul qaadan karin madaxooda cadcadkaas dhibaatadaas aan siin karin ay jiro marka haddaad intaas oo dhan aadan qaabili karin waxaad isticmaashaa baby oil isticmaal ayadaa ku caawinayso oo si fiican oo deganaana ku caawin karto baby oilka faa'iidooyin badan ay leedahay ayadan taga isla markii way qalalaysaa oo baby oilka way qalashaa marka tartiib u mari si mataqaanaa oo badanna maaha waqtina u dhexaysiye marka hadda tan marisi isla markii tan ha ka daba marin waqti ay tan madaxa ku gasho oo caadi oo taas la marin karo ayaad ku isticmaalaysaa inay fahantaa ayaan jeclahay marka insha allah waa mahadsantiin lana socda arrimaha aan noo soo wado isbuucan soo socdo way ka duwanaan doonaan wixii aan horay uga hadli jirnay insha allah isbedel kale ayaan la imaan doonaa oo annaga dhan gaashaanbuurteena nabada anfici doona taas waa insha allah balanteeni aan ku balansaneen waayo waa maalmahan soo socdo wixii beri ka dambeeyay insha allah 10 bisha waa berito wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa howl kaloo cusub inaan insha allah dagaalkeeda bilowno oo aan wada sugayno loo wada baahan yahay maaha tii aan dhahay madaxan saliid kale u isticmaalaya waa arrin kale oo ka baxsan arrintaas aan laakiinse arrin ah annaga dhanna wada anfacaysa gaashaanbuurteena iyo asxaabteenaba dhammaanteen insha allah waxaan idin leeyahay fadlan iscaawino aan isgargaarno aan isgarab qabano waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu